maanta waxaa la siinaa abaalmarin abaalmarinta waa maxay dalacsiin dalacsiintana xaa la yidhahdaa waa lagu dalacsiinaa saas le mi lacag friya qaadanaya aamus هي صعب لكن aamus idin maxaa idinku dhacay akhay maya madana wax lagu sharxay wax lan fahmay annaga fureer ya akhay ilmaha waa yariin ina ku qaylisid ama ku gondaysid ma loo baana tartiib saas waa haye waaya laakiin waxaa leeyahay akhbaarta fulka ah Tony inaad ka helaysaan qaabka u soo galaan iyo sida ay wax u qaadaan iyo waxay ka shaqeeyaan intaba ninkaas waan aqaan aabi ay saaxiib yihiin haloor isaga aad haddii wax kale adiga baahatiin aniga soo waca ورا هذه أنت هذا محل ديرته فرت عمل. معناها هو يقول بدت أنا جن صانع وحن كدكتي استل أو لا والله. جرنالك بقولها لقى صدا وعسى كذا ستوجد الله هلا. هذه أنا عجر كان توجد إيجا من حياة بتنسى ولا دير إيقاب درلا. أو توجد بحركة سيجي لنا بيالمي. أيوة كسيدة مع السلامة. أيوة مع السلامة. يوم خنكرة. نينك توني اللي يا موطن استعماله. وأنا قاعد أستروي. dadka qaar waxay haystaan xirfad dadka qaarna waxay haystaan awood balse Tony labadaba isku darsaday Tony awoodiisa lagama hortagi karo mootodistan aad ay ugu dheereeyaan marar badanna guulo far badan ka soo hoyay isbiidka oo mootada ku xeenayo waxa uu si dheer akshamada uu ku sameeyo ilaa hadda ma aan arkin qof saas oo kale mooto ku sameeya waa nin halis ku ah mootooyinka guusha sida uu gaaran wax walba uu sameyn karaa Tony wuxuu isticmaali jiray mootooyin fara badan balse waxaa jirta hal mooto si khaas ah u jeclaa haddii xataa uu joogo meel magaalada ka fog waxay ahayd mootada kaliya uu ku dhaarto sidoo kale mar walbana wuxuu ugu yeeri jiray ama uu baxshay magac gaar ah saaxiibadiis ayaa mootada mar garaaf ka gaarsiiyeen wuxuuna isku dayay inuu ayaga kaw ka siiyo hal mar sharaf dhac soo wajahday darteed ay u joojiyay tartamada inuu ka qayb galo Tony laakiin wuxuu ahaa nin geesi ah Tony sharaf dhacaas markii uu ku dhacay kadib Faransa wuu ka soo tegay magaaladan ayuu yimid wuxuuna bilaabay inuu shacabka ugaarsado taas macnaheedu waxay tahay liwaax haddii u duqow xataa si walba ugaarsiga ma joojinayo wuxuu bilaabay inuu gaangis noqdo mar walban uu shacabka dhibaateeyo sidoo kale Tony waxaa la dhashay wiil yar waxbarasho ayuu ku jiray laakiin mar walba wuxuu ku hamin jiray inuu noqdo Tony oo kale oo ka qayb galo tartamadan mootooyinka Tony walaalkiis wuxuu hamiyey inuu mootada sharad dhigto oo la galo tartan wiil isku kala jahaya labadooda waxay wadaageen tartan mootooyin Tony walaalka ka hira waa lagu guulaystay tartanka mootooyinka sidaa darteeda baqdin oo ka baqay walaalkiisa ka weyn ee Tony ayuu wuxuu go'aansaday inuu asaga nafsada israafsiyo maxaad sidaan u samaysay waxaan rabaa su'aalo fara badan inaan ku weydiiyo maalinkaas waxay ka dambeeyeen Tony wuxuu galay inuu baadigo mootada walaalkiis sharaf looga helay mootadan shambiri koor leh balagati bas amale shambir kor waad gadateen been ma laakiin ugu inay tahay mootada walaalkiis sharaf looga helay sidoo kale geeridu walaalkiis sabab u ahayd asagana waxa mar walba muhiimadiisa inuu mootadaas gacanta ku dhigo mootooyin badan oo jira kuwaas la iska gatay tan kaliya maxaa ku soo diri waay hadda maxaa soo binaa noo sheeg bay akhay waxaan igula talinayaa gabadhaas inaad iskaga sabartaan haddii gabar kale aad helaysaan booskada aad ku bixisaan may ismayn karin midaas